Hunter waxay doonaysay inay ka cabsiiso saaxiibadeeda Becky markaasay si xooggan u ruxday jaranjartii lagu fuulayay towerkan. Ogaada saaxiibayaal, towerka waa mid duug ah oo dhowr sano ku dhisan. Halkan suuragalna ma noqon karto in loo isticmaalo xoog, balse iyadoo aan ogeyn in ruxitaankaas xooggan uu dabciyay boolalkii jaranjarta ee celinayay. Markay gaareen dusha sare ee towerka, waxay bilaabeen inay sawiro waaliyaha iska qaadaan sidii dad guryahooda ku sugan. Laakiin markii ay doonayeen inay hoos u soo degaan, jaranjartii ayaa kala furfurmatay, boolalkiina mid mid ayay hoos ugu dhaceen. Isla markaana Becky oo xariga badbaadada dhexda uga xirnaa ayaa la soo dhacay, waxaana xoogaa celiyay xarigii, waxayna hawada ugu dul wareegaysay sidii jinkad jaban oo 2000 oo feet oo hawada sare ku jira. Haddii ay hoos u dhacdana way dhimanaysaa. Hunter waxay isku dayday inay xargaha xoog u qabato si ay saaxiibteeda dib ugu soo jiido, balse si kadis ah ayay awoodii uga yaraatay, wayna sii dhacday. Becky qaylo iyo cabsi ayay dareentay, laakiin Hunter waxay adeegsatay intay awooddo, iyadoo kor u jiidaysa kuna xirtay xariga birta towerka. Ugu dambeyn Becky ayaa dib u soo fuushay, sidaas ayna ku badbaaday. Laakiin markay hoos eegeen, waxay arkeen in jaranjartii oo dhan ay hoos u dhacday oo burburtay, waxayna ku xayirnaayeen towerka telefishinka oo cidla ah 2000 oo feet sare, iyagoo aanan lahayn jaranjaro iyo waddo ay ku soo degaan. Hunter waxay soo bixisay telefoonkeedii si ay caawimaad ugu yeerato, laakiin dusha sare signal ma lahayn. Waxay ka dhex heleen sanduuq ay ku jiraan bullets iyo bastoolad. Markaas ayay Hunter aragtay in sawirkii ay horey u soo dhigtay uu helay in ka badan 300 oo like oo baraheeda bulshada, taasoo micnaheedu tahay in hoos ay leedahay signal. Waxay qortay fariin ay ku dalbanayso caawinaad, waxayna ku xirtay telefoonkii xarig, si tartiib ahna hoos ugu dejisay. Laakiin xarigii ayaa gaabtay, fariintiina uma dhicin. Hunter waxay go'aansatay inay nafteeda khatar geliso, waxayna ka degtay saqafkii towerka ee nabadgelyada u ahaa, waxayna isku dayday inay hoos ugu sii laalaadato jaranjartii go'day. Hal gacan ayayna sii daysatay, telefoonka ayayna hoos u raaricisay. Becky oo cabsi badan dareemaysay, ugu dambeyn Hunter xooggii ay isku celinaysay ayaa ka dhamaaday, waxayna ku khasbanaatay inay dib kor ugu soo laabato. Markaas ay Becky fikrad cusub heshay, taasoo isku weydiinaysay haddii dhulka uu signal leeyahay, telefoonka maxaa dhulka loogu tuuri waayey. Hunter waa ay ku raacday fikirkaas, waxayna gelisay telefoonkii kabaha. Intaa kadibna waxay ka tuureen 2000 oo feet, laakiin saacada ayaa kasoo wareegtay, wax gurmad ahna uma imaan. Waxaana u cadaatay in telefoonkii burburay. Markii rajaxumadii sii korortay, waxay arkeen in hoos socda, farxad iyo qaylo ayay bilaabeen. Kabahana hoos ayay ugu tuureen, laakiin ninku madaxa kor uma soo qaadin. Intuu kabaha qaaday ayuu iska tuuray, si caadi ayuuna iskaga dhaqaaqay. Halkaas ayayna ku niyad jabeen. Becky waxay dooratay inay isticmaasho bullerkooda, laakiin Hunter ayaa joojisay, waxayna tidhi qoraxdu aad ayay u iftiimaysaa, marka iftiinka lama arki karo. Waxay sugeen ilaa habeenkii. Markii habeenkii la gaarayna, bullerkii cirka ayay ku rideen. Ninkii dhulka joogay wuu arkay iftiinka, markiina farxad ayay dareemeen iyagoo filaya gurmad. Waxayna is yiraahdeen ugu dambeyn waa naloo imaan doonaa, laakiin waa riyo aan rumoobin. Ninkii hoos joogay wuxuu dhaqaaqay dhanka iyo gaarigii ay wateen gabdhaha. Intuu bir xoog leh qaatay ayuu daaqadii gaariga jabiyey, albaabadiina furay, wuxuuna ka haystay gaarigii, halkiina uu iskaga tegay. Hunter iyo Becky waxay ka daawanayeen towerka sare, indhahooduna way ilmeynayeen. Waxayna garteen in riyadoodii ugu dambeysay uu la cararay ninka tuuga ah. Hadda waxay joogi doonaan 2000 oo feet hawada sare, cidna ma maqlayso, cidna ma garab taagna. Markaas wixii ka dambeeyeyna waxay ku rajo weynayeen in mar tuugii u soo laabto, iyaga oo filayay inuu isweydiiyo wax laakiin habeen dhan ayay sugeen ilaa subaxdii dambe, weli cidna ma imaan. Cunto iyo biyo midna ma lahan. Hal maalin oo dhan wax cabitaana ma aysan helin, jirka iyo maskaxduna wuu tabar darnaa. Waxay garteen inaysan sugi karin cid kale, waa inay naftooda badbaadiyaan. Hunter waxay qaadatay riski aad u weyn, waxayna isku xirtay xariga badbaadada, waxayna isku diyaarisay inay soo qaadato boorsadii ku xayirneed saxanka birta ee towerka ka hooseeya. Beckyna intay oyday ayay ka codsatay inaysan samayn, laakiin Hunter waa diiday. Si tartiib ah ayayna dhinaca towerka hoos uga degatay, iyadoo xariga haysata. Markasta ay hoos usii degto, waxay daynaysay gacan, waxayna ku dhegan tahay hal xarig oo keliya. Waxayna soo gaartay dhammaadka xariga, welina uma dhawa boorsada oo aad ay uga fog tahay. Waxay isku dayday inay hal gacan ku gaarto, laakiin uma suuragelin. Markaas waxay samaysay go'aan waaliya, waxay sii daysay xarigii ilaalada oo ahaa, waxayna hadda hawada ugu laalaadaa hal xarig oo keliya, difaac la'aan. Waxayna bilowday inay isku daydo inay ku bowdo saxanka birta ah. Beckyna kor ayay ka qaylinaysay cabsi darteeda. Ugu dambeyn Hunter way bowday, waxna mucjiso ahaydba inay si sax ah ugu degtay saxankii ay rabtay. Boorsadii ayay qabsatay, waxna ugu horeyntii ay kala soo baxday caag biyo ah, isla markiina way cabtay. Becky kor ayay ka eegaysay iyada oo haraad badan dareemaysa, laakiin dhibaatadu weli way taagan tahay. Sidee dib ugu soo laaban kartaa?
Hunter waxay furtay ul selfie ah oo ku jirtay boorsadeeda, waxayna isku dayday inay kusoo jiidato xariga. Marar badan ayay fashilantay, laakiin ugu dambeyn waxay ku guuleysatay inay xariga soo qabato. Kor ayayna ugu booday. Ugu dambeyn Becky intay xoog u jiiday ay Hunter dib ugu soo laabatay. Gacmaheeda dhiig ayaa ka qulqulayay, laakiin ugu dambeyn way soo kortay. Boorsadii ayaa sidoo kalena ay heshay. Gudahan waxaa ku jira biyo iyo daroon yar. Becky ayaa markiiba furtay boorsadii, waxayna ka heshay warqad yar oo rasiid ah, waxayna ku qortay fariin caawinaad iyadoo isticmaalaysa qalinka indhaha loo isticmaalo. Warqadii waxay ku xireen daroontii, waxayna u diyaariyeen inay u duuliso dhanka hoteelka ugu dhow. Daroonkii si fiican ayuu kor ugu kacay, isagoo si degan uga sii jeeday hoteelka, taasoona ahayd rajadoodii ugu dambeysay. Laakiin batarigii ayaa ka dhacay daroonkii, wuuna sii liicay, wuxuuna ku sigtay inuu dhulka ku dhaco. Laakiin nasiib wanaag, Becky ayaa si dhaqso leh u qabatay kahor inta aysan korontadu ka dhammaan. Hadda waxay haysataa daroon aan batari lahayn. Fariintii gurmadkuna ma gaarin halkii loo rabay. Mar kale ayay niyad jabeen. Markaas ayay indhahooda kor u qaadeen. Waxay arkeen iftiinka calaamada sare ee taawarka. Haddii iftiinkan si caqliyeysan loo adeegsado, mala waxaan heli karnaa jaajar. Waxayna ku fakareen inay ku jaajargareeyaan daroonkooda. Becky ayaa boorsada qabsatay, mar kalena bilowday fuulitaanka, iyadoo labada gacmood iyo lugoodba adeegsanaysa. Si tartiib ah ayayna kor u fuushay. Markay halkaas gaartayna waxay furfurtay daboolka nalka oo ka saartay baalmkii, kadibna waxay ku xirtay fiilada daroonka, wuuna u shaqeeyey. Waxay fadhiday 2 saacadood oo dhammaystiran iyadoo aan dhaqdhaqaaqin ilaa daroonkii gebi ahaanba u buuxsamay dabka. Markii ay kusoo laabatay barxadda taawarka, Becky waqti iskama lumin, isla markiiba waxay duulisay daroonkii iyada oo u dirtay dhanka hoteelka ugu dhow. Shaashadda daroontuna waxay u muujisay dhismayaasha ku yaala goobta. Waxay u baahneyd oo keliya inuu gaaro meel ay dad joogaan. Qof baa arki lahaa warqadda fariinta ee lagu xiray. Aad ayay u faraxsaneyd iyadoo dareemaysa rajo weyn. Laakiin markii daroontu waddada u gudubtay, gaari weyn oo truck ah ayaa ku dhacay. Becky naxdin iyo niyad kale waxay aragtay darawalkii trucka oo ka soo degay si uu u hubiyo haddii uu arkana warqadda. Waxay weli heli lahaayeen fursad, laakiin darawalku ma ogaanin daroonka burbursan. Wuxuu fiiriyey hareeraha, markaas ayuu gaarigiisii dib ugu noqday, iskana dhaqaaqay. Becky waa ay ilmeysay, quus iyo rajo la'aan, halka xaaladuna ay ku sii adkaatay. Markay u jeesatay Hunter, waxay mar kale eegtay hoos, iyadoo uu soo uray dhiig qormay. Waxay aamin weyday wixii ay indhaheedu ku aragtay. Hunter waa ay geeriyootay markay ku dhacday birta hoose. Ma aysan ka badbaadin dhicitaankaas. Becky waxay ahayd mid hallucination ku jirta ama aragti malawaal ah ilaa waqtigaas oo dhan. Waxay la hadlaysay wuxuu ahaa xusuus oo keliya, ma ahayn Hunter. Tan iyo maalintaasna Becky waxay ku sugnayd keligeed dusha taawarka. Halkii ayayna ku dhacday, wayna miir beeshay. Qoraxduna aad ayay u kululaatay. Xoogaa kadibna gorgor gaajeesan ayaa ku soo degay bowdadeedii dhaawaca ahaa. Laakiin Becky ayaa si tartiib ah u furtay indhaheeda, waxayna aragtay gorgorkii. Qoorta ayayna uga booday. Dabcan gorgorkii wuu la dagaalamay, laakiin Becky oo gaajeesan iyo xanaaq isku darsatay ayaa ku guuleysatay inay disho. Dabadeed waxay bilowday inay cunto hilibkiisa cayriinka ah, waxayna ka fikiraysay hal shay oo keliya: badbaado. Kadib Becky waxay furtay xarigii badbaadada, waxayna hoos ugu degtay jaranjartii iyadoo isku xirtayna markaasay hoos u riday intiisii kale oo ay gacanta qabsatay. Si dhaqso ahna ugu soo bowday. Markaan wax shaki iyo cabsi ahna kuma jirin. Dhaqdhaqaaqeeda waxay ahaayeen kuwa toos ah oo kalsooni leh. Muddo kooban gudahoodna waxay gaartay dhammaadka xariga, wayna furtay, kadibna ku bowday birta hoose ee saxanka. Indhaheedu waxay qabteen meydkii Hunter oo qurmay, balse waxay qortay fariin gaaban oo ah codsi gargaar, kuna dirtay aabaheeda inkastoo aanay jirin signal. Kadibna waxay ka siibtay Hunter kabteeda, waxayna gelisay moobilka, kadibna waxay dhex gelisay Hunter dhaawaca caloosheeda ku yaala. Wax walba marka ay diyaarisay kadib, Becky waxay tuurtay jirkii Hunter iyadoo hoos ugu dhacday 2,000 oo feet. Hilibkeedu iyo kabtiiba waxay noqdeen difaac. Telefoonkiina ma burburin. Markuu dhulku gaaray, signaalkii ayaa u soo laabtay. Fariintiin waa la diray. Guriga aabaheed James ayaa fariintii helay. Isla markiiba wuxuu wacay 911 isagoo u cararay taawarka. Becky waa la badbaadiyey. Markay aragtayna aabaheed si toos ah ayaynu ugu carartay iyadoo ilmadu ka daadanayso.